السلام عليكم waxaa dhawaan barteeda muuqaal ay ugu jawaabaysa dadyo cajarafeeyay soo dhigtay walaal ubax oo ah inanta mas'uulka ka ah hal abuurkiisana iska leh kanaalka dhaqan-kaaba inta aanan u gudbin muuqaalka iyo waxyaabaha ay ku sheegtay inta aan aqoon ubax iyo kanaalkeeda dhaqan-kaaba xog kooban ka siiyo ubax waa ina dhalinyaro ah oo kanaalkeeda la dhaho dhaqan-kaaba ku nool wadanka gudihiisa oo kanaalkeeda kaga hadasha dhaqankeena iyada oo aan muuqaaladeeda hal meel iyo hal gobol ka soo gudbin ee meelo fara badan tagta oo socdaasha muuqaaladeeda ay dhaqanka kaga hadasho waxa barbar socdo laba qodob qodobka koobaad in ay tahay inan xijaaban oo aan ka tagin asturaadda qodobka labaad in ay faalla ka bixiso dhaqanka ay soo gudbinayso iyada oo inta ay isku dayi karto isku dayda in ay qurxiso wixii edeb leh wixii aday ku jirana tilmaamta muuqaalkaas ay ubax ugu jawaabayso dadyowga cajarafeeyay waxa ay ku sheegtay dhowr qodob qodobka koobaad in ay jiraan dadyow la soo xidhiidhay oo ku yidhi hawl fiican baad gacanta ku haysaa oo wasaaradaha shaqadoodii ay gabeen ayaad ku hawlan tahay qof wax fiican qabtay oo la xuso oo xaflado loo qabto ayaad noqon lahayd haddii aad xijaabka dhigi lahayd kooxda labaad koox ku leh waxa aad gudbinaysaa dhaqan carbeed waxa isla ubax kadib isna muuqaal sameeyay walaal Cumar Inshaar kanaalkiisa ogaansho muuqaalkaas oo uu kaga hadlayo maxaa dhaqan ah maxaase aan dhaqan ahayn sidoo kale xaqiiqada dhaqanka iyo xijaabka waxaana uu la xidhiidhay walaal ubax aad iyo aadna waa uu u mahadsan yahay muuqaalkeennan waxa aynu kaga hadlaynaa laba fariimood fariinta koobaad waa fariin aynu u dirayno bulshada oo dhan iyo caddayn aynu daboolka kaga qaadayno waxyaabo badan oo la qufulo lana qariyo fariinta labaad in aynu fariin u dirno walaal ubax haddii aynu ku horreyno qodobka aynu ugu magac darnay daboolka qaadista qodobada qufulan waxa muhiim ah in aynu ogaano reer galbeedku marka ay bulsho duminayaan oo ay rabaan in ay dhaqan dooriyaan in ay u maraan wadooyin dhowr ah oo u fudaydinaya ujeedkooda si toos ah uma wajahaan wadada ay rabaan aasideeda ee wadiiqooyin yaryar oo ka farcama ayay soo aasaan si ay wadada weyn aasideedu ugu fududaato Soomaalida ayaa waxa ay ku mahmaahdaa gaalku meesha uu awr marinayo irbad buu ku eegaa ujeedka weyn ee ay gaaladu dadaal kasta oo ay ka sameynayaan wadan muslim ah u sameynayaan waa duminta diinta islaamka iyo qaadashada ilbaxnimo ku sheegta reer galbeedka haddaba haddii ay si toos ah dadka ugu dhahaan waxa aanu idin haynaa dhaqan iyo ilbaxnimo aan ahayn tiina ee qaata waxa shaki la'aan ah in aanay dadka abka awu islaamka ahaa aqbali karin waxa ay sameynayaan meelo aanay dareemayn intooda indheergaradka ah mooyaane ayaa loo soo maraya waxa ka mid ah meelaha loo soo maro muslimiinta iyo duminta bulshooyinka muslimiinta ah kow haweenka oo gacanta lagu dhigo laba dhaqanka oo la dhaho waanu idinka caawinaynaa dhisidiisa iyo dhowridiisa kadibna saddex qodob halkaa ay uga faa'iideystaan qodobka koobaad in dadka Soomaalida ah la gaarsiiyo sida ay dhaqanka u dhowrayaan heer ay dhaqanka iyo diinta dhaqanka hormariyaan oo qofka muslimka ah ku dhaho isagoo oo arrin diin ah ka hadlaya haaye arrintani dhaqankay ka hor imanaysaa haddii ay xataa ka hor timaado yaa la qaataa dhaqanka iyo diintu marka ay iskhilaafaan maxaaba wax kale oo diinta laga hormariyo meesha keenay haddii ay diini marayso qodobka labaad dhaqanka Soomaalidu waa dhaqan aad u qurux badan oo ku dhisan diinta islaamka ah ee ay bulshada Soomaaliyeed aaminsan yihiin haddana wax khalad ah iyo gaf ah lama waayo marka reer galbeedku marka dhaqanka ayaanu ilaalinaynaa leeyihiin qodobka labaad ee ay uga faa'iideystaan duminta diinta waxa weeye buunbuuninta meelaha uu dhaqanka Soomaaliyeed diinta ku garab maray oo noolaysiinta meelaha
dadaal badan lagu bixiyo si dadkuna diinta colaad ugu qaadaan. qodobka saddexaad ee ay reer galbeedku dadaal ku bixinta dhaqanka wadda uga dhigtaan duminta diinta waxa weeye in ay dadkan Soomaalida ah ee ku hawlan dhaqanka ay iyaga laftooda ugaarsadaan oo ay isku dayaan inta ay dhaqan celin karayaan in ay dhaqan celiyaan iyaga oo taana ku bixinaya dadaal kasta oo ay arrintaasi uga baahan tahay amaba marka hore hawshan gacanta u gelinaya oo u xil saaraya qof markiisii hore daandaansamay fikir ahaan mararka qaarna diin ahaanba u dhintay oo si baaxad leh iyaga ugu saamoobay. fariinta labaad oo aynu muuqaalkeena ka diraynaa waxa weeye fariin aynu u dirano walaal ubax inanta walaasheen ah ee gacanta ku haysa kanaalka dhaqan-kaaba. walaal ubaxay sida aan muuqaalkan horaantiisa kaga soo hadalnay hawshan aad ka shaqaynayso ee ah soo tabinta dhaqankeena Soomaaliyeed waa hawl ay wax badan ku hawlan yihiin gaalo iyo in u adeegta iyaga oo ay jiraan dad fiican oo fayow oo iyaguba ilaalintiisa iyo baristiisa xilli ku bixiya haddana iyaga oo ay taasi jirto gaalo iyo inta la aragtida ah ama sumaysani qodobkan aad iyo aad bay u daneeyaan. waxaa markaa naga talo ah dad badan baa kula soo xidhiidhay kuwa kalena waa ay kula soo xidhiidhi doonaan iyaga oo kuu qancinaya in aad tanaasusho oo aad ka laabato muuqa islaam ee korkaaga saaran xijaabka iyaga oo doonaya in aad aakhirka ka mid noqoto mid ka mid ah inta ay gacanta ku dhigeen ee dantooda mooyee dumin kalaba aan aqoon ilaahay kaama dhige. wax badan waxa ay kuu soo bandhigi doonaan xaflado ayaan kuu qaban ee ka tanaasul waxaas iyo waxaas annaga ayaa walaal xaflad iyo dadku ixtiraamaba kuu hayna oo bulshadaada oo dhan ayaa ku jecel. wax badan ayaa ay ku odhan doonaan waanu ku fangaraynanaa oo lacag baanu kugu bixin ee dhig xijaabka ka tag dhaqanka quruxda badan ogowse walaal lacag lagaga tegay waajib alle halka ay qofka sameeya geeniso kaama filayno ee si haddana waxa aad nagu leedahay dhiirigelin iyo garab istaag. ubaxay qofka bulshadiisa isu xilqaama meesha uu doono ha u gale waa qof abaalka alle ka suga ee aan bulshada ka sugin in ay u abaalgudaan waa ay tahay ee haddana ma mudna in uu qofku isagu marka horeba taas niyada gashado ee iyadana taas niyada ku hay. ugu dambayn ubaxay waanu kula jirnaa oo cidna kuuma jooqi karto inta aynu ku kulmi doono muuqaal kale oo xiiso badan waa Sakariya Haaruni oo idinkaga tagaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.